قصدا iyo dardaaranadaas Luqmaanul Hakiim uu noo tilmaamay culimadu waxay ka qoreen fawaa'id aad u fara badan oo ay xambaarsan tahay wasiyaadkaas iyo dardaarankaas. Dardaaranka koobaad xikmadda iyo murtida waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo ciduu doonana wuu siiyaa. Faa'iidada labaad xikmadda iyo murtida waxaa lagu gaaraa oo laga maarmaan ah asbaabteeda inaad la imaado. haddaad rabto qof murtile inaad noqoto waa inaad noqotaa qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo daacadiisa ku dadaalo sida Luqmaanul Hakiim qisadiisii ka muuqatay iyo dhaqankiisa iyo tarjamadiisa iyo taariikhdiisa. waa inaad noqoto qof wax akhriyo waa inaad noqoto qof wax baaro marka waxaad helaysaa in waxa ka soo baxaya ay noqdaan wax murti ah wax wanaagsan wax dadka faa'iido u leh wax dadka nacfi u leh